بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فصل: الأركان التي تلزم فيها ضمانينها 4. فصل: أسباب سجود السهو 4. أسباب سجود السهو سجود سهو أسبابتيس 4 أفر وين سجود سهو 4 سببات باكد. الأول ترك بعض لقتها أيا كين يوم من أبعاد الصلاة أبعاش هذه كمدة أو بعض البعض قيب كمدة هو لقتها وين صلاة sunnooyinka salaada dhexdeeda ku jiro yaa qeybna waxaa la yidhaahdaa abcaad, qeybna waxaa la yidhahdaa hay-aad. marka sunnooyinka qaar ka mid aha waxaa la yidhaahdaa abcaad, sida atixiyaadka hore iyo qunuudka iyo abcaad baa la yidhaahdaa. marka abcaashaa mid ka mid ahoo laga tago wey sujuudu sahwi baa loola yimaadaa. hadaad atixiyaadka hore ka tagto ama aada hilmaanto sujuudu sahwi baad hadhow oola imaan. qunuudka haddaad hilmaato sujuudu sahwi baad oola imaan. salliga nabiga haddaad hilmaanto atixiyaadka dambe ku jiro sujuud sahwi baad oola imaan. abcaasha taasaa la yidhahdaa. marka bacdi laga tago oo min abcaadi salaad ka mid a oo bacdigii qaar ka mid aha laga tegay, kama wada tegine qeyb buu ka tegay. atixiyaadkii buu qaar ka tegay ama qunuudkii buu qaar ka tegay. الثاني كلبات وسجود سهو كيني سببت سجود سهو كينتا فعل ما يبدل عمده ولا يبدل سهوه إذا فعله ناسيا. وحدات كس أسميس سلاد برني حديئات هلمان يسهوي أسميسنا أن سلاد برني يوقفك السمي هلمان بأسمي إذا فعله ناسيا هلمان بأسمي يقفك. مثلا hadal oo kale, hadalka qofka asagoo salaada dhexdeeda hadduu camdi kas hadduu u hadlo salaada way buri lahayd. hadduu laakiin hilmaan uu u hadlo salaada kama burayso. marka wax haddii kas loo sameeyo salaadii burin lahaa, hadduu hilmaan u sameeyo qofkii salaada kuma burayso. markaas hilmaan buu marka u sameeyey sujuud sahwiga oo la imaanaya. ficlu maa yubdilu camduhu waxa kaskiisu salaada burinayo walaa yubdilu sahwuhu hilmaankiisu aan salaada burinayn inay ku burayn salaadu. hadduu qofku hilmaan u sameeyo isagoo hilmaansan ama jaahil macduuraho inay salaadu ku burtaba aan garanaynin, idaa facalahu naasiyan isagoo hilmaansan buu sameeyey, hilmaan buu u sameeyey, sujuudu sahwi buu la imaanaya. athalith sababka saddexaad ee asbaabtii ka mid ah sujuudu sahwiga keenaysa naqlu ruknin qowliyin ilaa gayri maxallihi. rukni qowli ahoo la raro weeye ilaa gayri maxallihi, meeshiisii meel aan ahayn loo raro. rukni qowli ah iyo meeshii loogu talagalay buu ka qaaday meel kaluu geeyey. maalan faatixadu waa rukni qowli ah, waa rukni faatixadu arkaanta salaada ka mid oo la akrinayo waa qowli. faatixada qiyaam baa lagu akrinaye uu hilmaamay rukuuc buu faatixadii ku akrinay. salaamtii salaada aakhirkeeda ahayd waa rukni qowli ah. salaamtu salaada dhexdeedii buu yuu ku salaamay naqsaday hilmaan salaadii buu leeyahy iska salaamay. atixiyaadkiibuu asagoo taagan akriyay meesha fadhiga lagu akrinayo. rukni qowli ahoo meeshiisi laga qaaday oo meel kale la geeyo hadduu qofku hilmaan u sameeyo. kas hadduu u sameeyo salaadu way kaga buraysahay. hadduu hilmaan u sameeyo sujuudu sahwi baad oola imaanaysa. naqlu qowlin rukniyin ilaa gayri maxalli. naqlu ruknin qowliyin naqlu ruknin qowliyin rukni qowli abuu qofkii raray ilaa gayri maxallihi, meeshiisi meel aan ahayn buu raray.
الرابع كنفرات وسجود سهوك سببها كان كمدا أسباب سجود سهو إيقاع الركن فعلي مع احتمال الزيادة. ركن فعلي هو قفك سميه ركن فعل معنى فعل بوليمد أفعاشي صلاة كمدا مع احتمال الزيادة أسأقول الزيادة احتمالك يليمد مثلا سجود يقدم بيسي صلاة مركو سجود ليمد وشكي السجود يقدم بيسي ما سجود ما هلبا قول ما هلبا سجود مثل لبدي سجود والله تمد وشكي مركا هدي أفشكيسو يقين تعالى قبسنا يا ما لبا مثل وهل هدات كشكيسو يقين تو وهل إن هل طيبات كدقيسا من لباد باكو دريسا سوما مركا الركن قاس لباد هذا سجود والله تمد tii labaad inay tahayna waa laga yaabaa inay ziyaado tahayna waa laga yaabaa oo labadii aad hore u soo marka waa rukni qawliha rukni ficliha samaysay qofkii la yimid asagoo ziyaadana ihtimaali karo ay ku suuroobi salaadii afarta ragcadood ahayd markii uu ragcadii u dambeysay joogo ayuu shakiyo matiir saddexaad ba masawati afraad tii saddexaad inay tahay buu qabsanayaa yaqiintu waa mid ka yar marka inuu ragcad ku daro way marka waa rukni buu la imaanaya qawli ah asagoo ziyaadan ihtimaali karo inay tii afraad noqoto waa laga yaabaa inay tahay yani ziyaado tahayna waa laga yaabaa to shanaad inuu taas weey الرابع كنفرات ومن أسباب سجود سهو أسباب كانت كمدة إيقاع ركن فعلي ركن فعلي دعدي سوي يسبين تيسا مع احتمال زيادة هي للقب فصل سببها أفرت عمد كمدة سجود سهو ولا إيمانية سجود سهو جنا يعني وإن السجود لا تماده ولا سجود لا إماته يعني مركز التحيات كنا ما يسوي سلام هذا السلام نقصدين سلام تهرته كسببها ساكين كرت لكن أفرتها سبب مد كم ده سجود سهو كين فصل أبعاد صلاة 7 صلاة أبعاش يدو وتضو وتيمن هذا صلاة سنوي كصلاة الحد كجرا وهيئات أبعاد بالله كالقادة أبعاد هيئات سنوي كأبعاش اللي يدادو لو مبعابه وتضو أبعاد صلاة 7 تضوي التشهد الأول التحيات كيكوبات والتحيات كهوري وقعوده فردقيس تحيات كوامد فردقنا الفريسان ينا وسنا سونا وكيل أول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه في القعود فردقاس في التشهد الأول التحيات كهوري فردق يصلي كجرو وسنوا سنة والصلاة على الآل كل صلي في التشهد الأخير التحيات كالذنب والقنوت قنوتك وقيامه استاق قنوتك والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله آلكي صلي وصحبه فيه في القنوت تضبط داسا وحلو مقعابا أبعاد صلاة بالله وسنوين كمركا لغا تغو سجود سهوي لولا إيماني وحي أن سجود مركا لغا تغو أن سجود سهوي لغو كبينين هيئات بالله هيئات صلاة رحل سنوين كجرو سي تكبيرات الانتقالات كي الله أكبر الله أكبر قف قوليها فاتحة يعني سورة فاتحة قداش هذا الأغرنا يلوها ركعدو ظهر أيه تصبيحها الركوع أي سجودها لغو تصبيح سنة أيه taasoo dhan waxa la yiraahdaa hay-aad baa la yiraahdaa hay-aad baa la yiraahdaa hadii laga tago sujuud sahwi loolama yimaado sujuud loolama yimaado wixii sunna oo sujuud sahwi lagu kabo waxa la yiraahdaa abcaad laana salaada markaad wixii aad ka tagto laba umbu mid noqon sunna iyo farad umbu mid noqon hadaad rukni ka tagto ama farad ka tagto shaygii aad ka tagto waa inaad la timaado asagii horta waad soo sameeyay markaas aad sujuud sahwina la iimaanay haddaad yani sunnadan abcaasha la yidhaahdo mid ka mid a haddaa ka tagtana
waxba soo samayn mayso u noqon mayside sujuudu sahwi waa ku filan. hay-ad hadduu yahay hay-a hadduu yahay waxaad ka tagtay hay-aadka waa takbiiratu lintiqaalaadka allahu akbar iyo tasbiixaadka rukuuca iyo sujuuda subxaana rabbi alcadiim iyo subxaana rabbi ku jira iyo yani suuradda faatixada bacdiga suuradda la akrinayo ama aayadaha la akrinayo iyo hay-aad baa layidhaha kuwa haddaad ka tagto wax sujuudoo loola imaana ma jiro loona noqon maayo sujuudu sahwina loola miyo haddaad oola imaatana salaad weyba kaa buri. faslun tabdulu salaatu b14 khasla salaadu way burtaa 14 khislay ku burtaa. mubdilaatu salaad uu sheekhu meeshan ka galay salaada arkaanteedii waan soo ogaanay shuruudeediina waan soo ogaanay. qaybka saddexaad ee muhimkaa inaad barataa waa salaada wixii burinayo si aad ooga ilaaliso. salaada waxa mubdilaadkoo burinaya haddaada ka ilaalinin salaadaadii salaad ma noqonayso laanna waxa burinayaba ma taqaanid waa inaad ka ilaalisa wey. salaada 14 khaslay ku burtaa 14 sifo ama 14 shay bilxadath bay salaada ku burtaa. qofka salaada asagoo ku jira hadduu xadatho weysadii baa ka burtay salaadiisi way burtay. bilxadath xadath waa wixii weysada kaa jabinaya waad garanaysa asqara oo akbara walow sahwan. xadathu asqar waa kii yani weysada burinayay qofka ama neef baa ka soo baxday ama qof ajnabi ha taabtay asoo salaadii ku jiro ama salaadii wixii burinayay waxay weysada burinayay ama wixii qabays waajibinayay. xadath ba hadduu yimaado salaadii way buraysa laanna salaada dahaara loo shardiyaa. xadathku markuu yimaado weysadii baa jabayso mar hadday weysadii jabtana salaadii way jabayso. wa biwuquuci nijaasati nijaaso qofkii ku dhacdayna salaadii way ka buraysa way burinaysaa. in lam tulqa xaalan markiiba haddaan la tuurin min gayri xamlin ayadoon la xumbaarin wey. qofka salaada asagoo ku jiray nijaaso kusoo dhacday markii kusoo dhacdayba hadduuna iska tuurin oy sii saarnaato xoogaa ay korkiisa sii saarnaato xaamilu nijaaso noqono salaadii way ka buraysaa. in lam tulqa xaalan dee nijaasadaas meesha ku dhacaysa laba umay mid noqonaysaa inay qoyan tahay inay angegan tahay. hadday qoyan tahay salaadu markaasayba buraysaa leanna wax tuurmaya maaha ordadayba qoyan tahay bas weyn. hadday angegan tahay oy nijaasaha kugu soo dhacday way angegan tahay adoon xumbaarin xumbaaridda waxaa la yidhaha intaad saa u qabato inaad saa u dhigto waad qaaday mogtahay lama rabo yaa kugu soo dhacday min gayri xamlin buu iska tuuray yacni geesku dhinac buu qabtay maradii sidaas yiri way duushay. in lam tulqa xaalan markiiba haddaan la ridin oy kugu sii baaqi ahaatay xoogaa ay kugu sii baaqi ahaato qofka xaamilu nijaaso noqonaya salaad way ka buraysa. wankishaafi lcawrati cawradii oo faydantay salaada ku burtaa in lam tustar xaalan markiiba haddaan la asturo. qofka asagoo salaada ku jiro iyo cawradiisii faydantay. cawrada ninka markuu salaada ku jiro ama amada addoonta markay salaada ku jirto maxay ahayd maa bayna sura warukba xudunta iyo labada lowinta udhaxayso. salaada intuu ku jiro inay intaa soo banaanaato lama ogoleen. hadday meel ka faydanto naagta xorta ana jamiicu badanihaa bay ahayd maa siwa alwajhi walkafayn wejiga iyo labada kafix ka marka salaadii uu qofkii ku jiro hadday cawradiisi faydanto ama maradii baa dhacday ama dabayl baa timid oo way qaaday xaggay ugu rogtay waxa u saartay ama maradii baa yani mari uu qabay baa dilaacday salaada ku jiro oo soo baxday. in lam tustar xaalan markiiba haddaan la asturin ay buraysaa salaada. laakiin markiiba haddii la asturo kisaa u faydantayba uu asturay salaadu kama buraysa markaas laanna salaada shardi waxaa u ah satru lcawra cawradu waa inay asturan tahay. wاnutqu bxarfayni aw xarfin mufhimin camdan waxaa salaadii burinayo wanutqi hadal bixarfayni qofka uu ku hadlay laba xaraf buu ku hadlay haday doono macnoba yaan laga fahmin laba xaraf lam buu mar yiri ama min wax macnoo laga garanaya ma jiro min haddaa iska tiraado ama lam
والله حرف ويبرنا صلاة أو حرف مفهم هل حرف وهو معنى فائدين عمدا كسب وهل سهوي ما دو سهوي هاي صلاتكم بريس هل حرف أو معنى لقى فهم هاي يقول هذا قي أي قي هذا هو هالحرف لكن معنى فائدين قي إلى لي من الوقاية تبى لك قي إلى عي ويغف عي ولا معناها قبوي وحسب وشيء ما عي ولا حفظ في يري هالحرف زمان في أوفي والله من الوفاء والله كين أوفي هل كحرف كواحد برني عرف مفهم واحد أو حرف مفهم عمدا كسبه وهن ويبرز ثلاثة وبالمفطر عمدا وحي صون كبرني كس هدو قفك ويل هذا صون كبرني يا صلاة الكبرزة وبالمفطر وحي برني صوم كبرني عمدا كس هدو قفك أسمعيه مفطر كاس صلاة دي باكو بريس مرحبا ووحا كس هدي لو سمي يعني صومك وكبري محاكم ذا كإدخال عود في نحو أذنه والكأكل ولو قليلا قفكي dhagtu iska geliyo wax iska geliyo marka dhagta gudaheeda hadaad hoos u geliso wax dhagta geliso soonku ka bariya dhagta gudaheeda wax geliso ama waxbaad cuntay laqday walow wax qaliil ah noqday ka sadaa u sameeyay soonku ka bariya de salaadana hadaad ku sameeyso waxa uu dhagta aad geliso asaad wax iska geliso ama aad wax laqdo salaadii hay'adeedii loogu matalagelin ناس لو قمت الصلاة ويكبر الصلاة الصلاة هي أي لا ده إنه قفكوا يعني مركو دون ودكت سكتوا كيان كرو دكت واحد سكت جشن كرو معها أين إلى على هي هذا الصلاة وبالأكل الكثير ناسيا وحبوا أدعون يقفكي سقوه المانسن صلاة ويكبر soonka kuma bureynin adoo hilmaansan hadaad wax ka daragto soon kuma bureynin laakiin salaada adoo iska hilmaansan wax iska cunto way bureysaa laana salaadu hay'a makhsuus oo gaar ay leedahay inuu qofku asagoo salaad ku jiro intuu cunto iska qabsado iska cuno uu garan waayo masuuro laakiin soonku maartay wax u gaar ah qofku uu iska socdaa uu fadhiyaa sheekeynaya sidii caadiga ahayd buu ku dhex jiraa wuuna soomayaa wuu hilmaami karaa qofku wax uu iska cuni karaa لكن صلاة قف كسو كجلو إنه عنتين توس كسو قاتو ما هي مسؤولية تاهلمان كان لوجو معذور دارية تاس صلاة لوجو معذور دارية ويكون بريسة صلاة وثلاث حركات متواليات صد حركة أو حريرتي صلاة كبرتها ولو سهوا هلمان بانو صد دقائق أو حريرتها دو قف كسو حجو انت بدن مشكلة مدة dadka ka haysata taas way xarakaadka way iskama ilaaliyaan saddex dhaqaaq buu qofkii sameeyay gacantu qaaday dana uu qaaday waa ka buraysaa salaad jeebku wax kala soo baxay uu ku ceshaday waa ka buraysaa salaad teleefankii buu soo bixiyey uu fiiriyey uu damiyey ku ceshaday salaad buu kuma jira qofkaas tartiibtaada adoo xarakaadkaaga ilaalinayo hadaad gacanta intaas ha tiraahdo teleefankii qabato oo codka ka damiso ama aad si tartiib ah un adaad joojin karta mooyaane inaad un iska raadsato oo qof kuwa qaar xorana meel daran buu jeebku kaga jira intuu raadinayaa waxa mushkil ah intuu saan bulay intaas oo dhaqaaq buu sameeyay
ثلاث حركات متواليات بصلاة كبرى صد حركة دقائق بهذا سمس لأن صلاة وحال دونيا خشوع خشوع بالدونيا إلهي بدهر تاجنتها حبناها قولنا إنه دقائقين بالدونيا ولو سهوا صدح دقائق بهذا سمس ولو سهوا ما هنقضي صلاة كبرى سوا والوثبة الفاحشة بصلاة كبرى والوثبة بوتنتي الفاحشة فوش حميدون يعني قفك صلاة أسوء كجرو أيو بوذي وصيد لو وذا قرن كرو فالحم بو بوذي أقول إذا صلاة وحبا تابتي ولا سو بوذي أي بريسة صلاة دي الوثبة الفاحشة بوتين حن دقاقير جيركو دقاق ديما لكن دو كل قاعد وذا بود دقاقو تاسي ثلاث قبرتها والضربة المفرطة ضربة مفرطة أبي صلاة كبرسة قفك أسوأ كجر صلاة يو وحكو رفتي ضربة مفرطة قعو ساعة تابتي دي مالي لكن أسوأ صلاة كجر وحبو سي حوق أو رفتي ويكبرسة صلاة وزيادة الركن فعلي عمدا ركن فعلي هو كسء الزيادة قفك الركوع زياده هو كسء ليمت أما السجود زياده هو كسء ليمت كسبه يلي يكبر صلاة والتقدم على إمامه إمام كيسيبه كالهر مري بالركنين فعليين لبر ركن أو فعله إمام كيسي كالهر مري يكبر صلاة إمام كيو تاجن أيو انتو ركوعي أو اعتدالي أيو سجود وهوبت إمام كده يقول له تاجين ما تعال وقرنا انتو صعدا هو الإمام بابا ما نقول سكيت تجيب زمان إمام كيسي بحضور لبر ركني وفعل كلهر مرة ويكبر صلاة والتخلف بهما بغير عذر لبر ركني وفعله إمام كيسي كلهر بغير عذر الآن إمام كي وركوعي واعتدالي وسجودي أسوي نولي وتاجي تخلف وين لبر ركني بكلد مري بغير عذر بالك شرطها بغير عذر أو عذر كاسوامه نسيان باكورا وسكم مقيه هاي أما وأن عرب علص إمامكنا وأن دقدق بدن ما ممكن وأن عرب علص فاتحادي أنتو أخرين إمامك لبر ركني سدح ركني مكبود سيسعى ممكن أنا عرب علص دقدق بدن حدو آدو عرب علص يا هنا ما ممكن إمامكنا وآدو عرب فدود يا ودقدق بدن يا من صلاة فدودين بدن باي waxaa loo cudur daarayaa saddex rugni oo dheer baa loo ilaa uu la dhaafo loo cudur daaraya rukuuc waa rugni dawiil oo dheer i'tidaalka lama tirinayo waa rugni gaaban sujuudda koowaadna waa rugni dawiil ah fadhiga labada sujuudood u dhaxeeyo waa rugni qasiir ah sujuudda labaad waa rugni dawiil ah intaas hadduu imaamku la dhaafo asagoo weli waa taagan yahay imaamkii sujuudi labaad intuu sujuuday istaagi kaluu imaamkii ugu imaanaya taa markaa bas wey hadduu istaagi labaadba imaamka ugu yimaado markaas waxaa weeye inuu laba unbaa markaa maamuumka mid u furan inuu ka goosto imaamkaas salaadiisa iska wato iyo inuu rugnigan hadda soo istaagay mota ragcaddii labaad buu soo istaagay ragcaddaanuu ku raacaya imaamku hortanuu ku raacaya ragcaddii horena markuu salaamo naqsado ragcad la imaanaya daan buu samayn karaa duu saddex rugni oo dheer uu la dhaaf laakiin hadduuna saddexdaa rugni oo dheer uusan la dhaafin markuu imaamku sujuudi labaad ka soo kacayo iyo asaguna rukuuci soo galay imaamku sujuudi labaad markuu sujuudi koowaad markuu ka soo kacay sujuudi labaad markuu imaamku ku jiray asaguna i'tidaalku soo galay imaamku markuu soo istaagay asna sujuudi buu usii hoobanayay uu daba soconaya markaa uu daba socon karaa markaa
marka loogu cudur daaraya hadduu imaamku ma'muumku yani uu yahay nin bud'u lqira qiradiisa badii ah wey mucarab culus yahay imaamkuna uu deg deg badan yahay imaamkuna uu deg deg badan yahay waswaasku laakiin laysa bicudrin hadduu imaamku ma'muumkan uu nin waswaas qaba yahay oo uu salaadiibu aqrintiibu maantuna ku noqonaya ama uu iska taagan yahay kaa cudur maaha waswaas uga cudur daari maayo kaas waniyatu qadci salaad baa salaadii burinayo salaada inuu gooyuu niyooday qofka inuu salaada ka baxo ayuu niyooday way ku buraysaa salaada salaada niyadiisaba qofka hadday kusoo dhacdo salaada goo ama ka bax way burtay salaadii wa tacliiqi qadcihaa bishayin salaada goynteediibuu shay ku xidhay salaadii way ku buraysaa salaadii buu ku jiraa markaas wuxuu leeyahay ninkii hebel aan la ballamay hadduu anoo salaada ku jira igu soo gaaro waan ka baxayaa salaada hebelka aad sheegaysa ma sugaysa salaada hadday buraysaa tacliiqi qadcihaa bishayin waaye goynteediibuu shay ku xidhay waan shaygaas hadduu yimaado ama arrintaas haddii la gaaro waan goynayaa buu yidhi saasuu niyooday markaasayba buraysaa salaada wataradudi fii qadcihaa baa salaada burinaya salaada goynteeduu ku taraduday qofka ku taradudaya ma ka baxdaa ma dhammaystirataa ma ka baxdaa marba haddaad u taradudaya qofkii salaad kuma jirtid iskaga bax meesha marba hadduu ku taradudo qofku ma goysaa mise waa dhamaysaa way buraysaa salaada markaasay buraysaa wataradud fii qadcihaa salaada goynteedii buu ku taradudayaa ama taamiyeeladeedii 14 khislo ayaa salaada buriso mubdilaatu salaad baa la yidhaha haddaan laga ilaalinin salaadu salaad saxiixa ma noqonayso waa in laga ilaaliyo salaada waxa burinayo mubdilaadka waa muhim wey faslun alladii yalzamu fiihi niyatu limaamati 4 salaada markii imaamku uu dadka tujinayo imaaman inuu niyoodo imaamnimo inuu niyoodo waajib ma waa iska sunno waa sunno marka laakiin imaamantaas uu niyoonayo salaada hadduu hadda isagoon imaamana niyoonin hadduu salaada iska galo salaada waa saxiix oo jamaacadii waa lagu tukan karaa laakiin asagaa fadiiladii jamaacadu helaynin fadiiladii jamaacada ee 27 darajo ahayd ma helaya hadduusan niyoonin asaga waajib maaha marka 4 xaalo waxaa jirto inuu imaama niyoodo ay waajib ku tahay imaamka hadduuna niyoonin salaadu maba ka ansaxayso alladii yalzamu fiihi niyatu limaama imaamnimada imaaman in la niyoodo oo imaamnimo uu niyoodo imaamkii marka ay waajibayso 4 xaalo aljumcatu jumcada inuu imaamku imaaman yidhaahdo oo uu niyoodo waajib wey lianna salaada jumcada iyo salaadaha kale way kala duwan yihiin jumcada sideedaba jamaaca loo shardiyaa waa in jamaaca lagu tukado jumcada salaadaha kalena keligaa baa tukan kartaa jamaacadana waa lagu tukanayaa fadiila markaa laga raadinaya fadiilatu jamaaca laakiin jumcada maba ansaxaysa bigayri jamaaca qof keligii jumca iska tukan kara ma jiro jamaaca lagu tukadaa jumcada jamaacada cadadkeeda unbaa la isku khilaafaya cadadkeedu intee yahay intee baa jamaaca tukan karto laakiin jamaaco in la helo waa shardi munfarid kuma ansaxayso marka jumcada waa inuu imaamku niyoodo imaaman waa inuu niyoodo imaamnimo waa inuu niyoodo walmucaadatu salaadii la soo celinayeyna imaaman inaad niyooto waajib wey mucaado salaadii markii la tukaday qolo kalaa timidoo waxay ku yidhaahdeen natuji salaadaadi waa tukatay markaa mar labaad qolo kale waxay ku yidhahdeen imaam noo noqo imaaman inaad tiraahdo wey taasna waajib wey laanna salaadaadi waa tukatay salaadan hadda aad soo celinayso waa inaad imaama niyooto wey mucaadaa la yidhaha taasna walmanduuratu jamaacatan jamaacatii lagu nadrayna waajib weeye ayna in imaaman la niyoodo
qofkii wuxuu ku nadray ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan jamaaca tujiya oo inaan jamaaca tujiya baa tiri imaam noqdo markaas waajib ay kugu noqon inaad imaam tiraahdo markaad tujinayso imaaman inaad tiraahdo waajib wal manduratu jamaacata tii lagu nadray inaan jamaaca tujiyaan ilaahay igu leeyahay u ballan qaadaya waajib ay kugu noqon wal mutaqaddimatu fil madari roob kamid laga hormarinayo salaada markii waxa jiro yani jamaaca waxa kamid ah asbaabaha loo jamciyo liajli al-madar jamcu taqdiim baa loo sameeyaa roob badan baa da'ayo dadkii hadday baxaan jamaacadii ma soo noqon karaan maqribkii markii la tukanayay roob fara badan baa da'ayo cishihii looma soo noqon karo waa la isku daraya taqdiim cishihii baa horey loo soo wada lagu daraya maqribki waa misaal مثلا عصركii baa loo soo noqon karin duhurkii baa lagu daraya jamcu taqdiim wey marka jamcu taqdiimkaas waxaa loo samayn karaa madarka liajli lmadar yaa loo samaynayaa soo ma marka salaadaas mutaqadimada fi lmadari laga jamcinaya inuu imaamku imaama yidhaahdo waajib wey afartaas goor bay imaamnimadu waajibaysa inta kale waajib kumaha imaamku inuu imaama niyoodo waajib kumaha waa sunno فصل شروط القدوة 11 قدوة شروط هذا قدوة وحرشة اللي اسكو حرنية قدوة ضيشها لينا قفك مركو كحرته وخد ضيانيا معناه هذا والراحة ياوي إمامك يسو الراحة يا مامونك مركا قدوة اسكو حرشة أما الراعدة إمامك مامونك وإمامك الراعي كوية 8 شرط بيلانا كوية 8 شرط شروط القدوة 11 كوية 8 شرط وي الله يعلم بطلان صلاة إمامه بحدث أو غيره شرط كوبات مأمومكو وإنو سن أوغين إمامكو إني صلاة كبرتي أما حدث أو كبرتي أما وحكى له كبرتي إمامكو إني صلاة دي سبرتي مأمومكو وإنو سن أوغين هدو أوغي هاي إنو إمامكو صلاة كبرتي كما حيران كرمو منكو داين كرمو salaada dhexdeeda iyadoo lagu jira hadduu arko imaamka salaada ka burtay inuu ka goosto waajib wey hadduu ka goosan waayo way ka buraysaa salaada maxaa yeelay nin aan salaad ku jirin baad daba raacaysaa soo socotaa soo ma waajib marka ma'muumku waa inuusan ogaanin inay imaamka salaadiisii burtay waa inuusan ogaanin ana waxba kama ogo inuu isaga weyse qaban buu ogyahay hadduu xataa imaamku inuu weyse la-aan yahay markii salaadii laga baxa kadib inuuna weyse qabin hadday soo baxday imaamka un baa salaadiisa soo celin mooyee ma'muumka waxba waajib kuma ayuu salaada waasi laana maysa ogeyn salaad lagu jira inagu allah yaclama butlaana salaati imaamihi imaamkiisa salaadiisu inay burtay waa inuusan ogeyn ma'muumku bixadatin oga burtay ow khayr ama wax kale oga burtay wa allaa yactaqida wujuuba qadaa'iha calayhi ma'muumku waa inuusan ictiqaadinaynin imaamka salaada inuu soo celiyo inay waajib ku tahay hadduu og yahay in imaamku salaada inuu soo celiyay waajib ku tahay kuma xidhan karo masalan meeshii magaaladan la joogo kala camal meelahan oo la joogay biyo lama waayi jir biyo caadi ba iska ahayn biyaa la waay marma biyo la waayna waa la tayamumay markaas biyo la waay salaadina way tegi rabtaa soo biyana lama hayo waa la tayamumay marka meesha biyaha aan laga waayayna biyuhu qaalibka u yihiin haddii mar cilo dhacdo biyo la waa la tayamumo waa la gagawaysanaya laakiin salaada waa la soo celinaya markaas ayada imaam la iskuma xiranayo nin walba salaadiisii buu tukanaya laana salaada inuu soo celinayo waajib inay ku tahay waa ogtahay iskuma xiran karaan وألا يعتقد وجوب قضائها عليه دساس وألا يكون مأموما إمامك أتكو حرني سواء إنه مأموم هاي وأسأقوا أنه نكا لكو سحرني لأنين أسأقوا اللي هو قامني والخيار لهين هذا ترى أنه كو حرنا قف مستقل أو بات كو حرن كرتا تمام لو ما حرن كرتا مركا وألا يكون مأموما معناه حوي مركز وإمامك كو حرني هاي إمامك كحيرين يهي مأمومك ويهي إمامك ودوا سعوده كما حيرين كرتادون لكن هدو إمامك سلامة نقصده مأمومك مركا وحبا أودم سلادي سقار بأودم من إمامك سلامة نقصده بوقعه مركز مأموم هي مركا هرو مأموم هاي هذا إنك كما حيرين هذا وكحيرين كرتا تخيار بوليه مركز أتكو حيرين حالة أتكو حيرين يسو
وإنوسا أهين مأموم وإنوسا أهين هذا اللي والله يكون مأموما مأموم وإنوسا أهين من شروط صحة القدوة ألا يكون الإمام مأموما حال الاقتداء به مركا لو داينه هل مر تابعي متبوع مو ودا نقون كره في وقت واحد اسقي با قف راعي سنه ولا راعيا ما مسورويس فلو انقطعت القدوة قدودي هداي قوضو إمامكي با صلاة كبحي مأمومكي رعلا أودي مناي وو استاغي سوما جاز الاقتداء به والو حدن كرا مركز ولا أميا إمامك وإنوس أمي أهين لأن الفاتحة دي بقول لا يحسن حرفا من الفاتحة أمي محلوة جدا قف فاتحة دي أنا هجاجيني فاتحة دي مبكتة لي حروف تدقار أما شد كذي وأمي نين كان مأموم كان وقاري هدو مid أمي وأسوى كلا وياه وكحر كرا أما سجوا كسي ليتو لكن نين أسوى قاري أو فاتحة زف عن يقانو مid فاتحة دي بأنا قولين إمامك ما دكان كرا محكو حرنا وألا يتقدم على إمامه في الموقف وحا شرطي مأمومك إنوس إمامك سكهر مر في الموقف استاج مكانه استاج ماشي اللي تاجن يهي إمامك مأمومك وإنو إمام مأمومك دمبايو وحلقة فيرنا عربها حلقة فيرنا دي تاجيهين لبضوا ده عربات بالا فيرنا عربت مأمومك وإنو دمبايو عربت إمامك كدمبايو هدو يهي مأمومك نين عقدر إمامك وكدم بيسا عربتي وكدم بيسا فريه سنة إمامك دافع فريه إمامك دافع تا اعتبار ماله دوسو إمامك مأمومك عقدري إمامك وانا عقابا مركا تاس اعتبار ماله لو عربوض ماله فيرنا مرة هدي عربت مأمومك ودم بيسو دي دونا فريه سنة أوريها آذيني إمامك أكور ريان وصح يساقودي مركا يتاقين لبضو عربوض ماله فيرنا يا قيل تاقين مركا واساس وينو هوري كمرين وإنه كدم باير وإنه للسمية وإنه السميهين أو إنه كدم باير تقدم بالديدية وإنه نكهر مرن مركا يفضيان لبدا بريود بالا فينا لبدا ففضيدو معذور هو فدغاس كنت كنيان يا اسكو خيرنيو بريها laga fiirinaya markaas وإنه مامومك بريhiisu ka dambayso imaamka baridiis waxay raadeen وأن يعلم انتقالات إمامه مأمومك وإنه أجيهي أو جرانكره إمامك جورجورديس يعني إمامك الركوع اعتدالك سجود مركوسوك عيو انتقالات بالينا صح جورجورداس إمامك سمينه مأمومك وإنه لص عنكره صلاة دي كلمة اقتدام مسؤول بيه سأقول صعنيا سكو جانكرا بالرؤية وأركاب إمامك وأركيا أو أمسه يسمع صوته صوت كيسو مغلا إمامك ما أركيه لكن صوت كيسو مغليا صوت كاسو كلا سعانيا أو أمسه صوت المبلغ الساقي ما مغليا لكن مبلغ صوت كيسو مغلا مبلغ علينا مركو إمامك الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد سمع الله لمن حمده كادتك جارسين مبلغ ماله هذا مبلغ وكنوي لو ما بحنا مبلغ كله يعني مال كست كنا قاسين يسوى كان عضير بس إمامك الله أكبر يرادبه أوكي مركب وإنه لصعون كره إمام سوق لصعون كره بالرؤية أو أما بالصوت هو أركا أما صوت كيسو أركيا أما قف إمامك أركيو سي أركيا سوونه كاسك هوري وجي كده كاس مركور راعو إمامك ركور أصلا سير راعيا كاسو في سنة وجمال فوق حرية مركا قلداس كدم بيسو صفكا دنبو سير راعيا ونو إمامك كوا ودو أركي راعي وأن يجتمعا في مسجد إمامك يا مأمومك مركا يسكو حرانيان وإني مسجد كوكولمان هالمسجد مساجدكو انتو دورو هلاك هذا مساجدكو حد ماله حدو مسجدكو مقالدن أطلانو دن أوليقيا ويسكو حرانيان إمامك مأمومك يسكو حرانيان صافة إمامك مأمومك ودا حين هذا في المسجد تاي مساجد دحدي هذا تاي انتو دورو مساجدكو هلاك هذا
inuu ismaqli inuu la socon karo ubaa shardi ah la socon karo waa yajtamica fi masjidin aw fi 300 diraacin taqriiban haddayna masaajid ku wada jirin oo meel banaana ay joogaan ama imaamkii masaajidku ku jira ma'muumkiina banaanku joogaa 300 oo dhudhun waa inay isu jiraan imaamka ma'muumka intaa waa inay ka fogaan 300 oo dhudhun taqriiban 300 oo dhudhun taqriiban macnaheedu waxa weeye hal dhudhun ama laba dhudhun hadday dhiman tahay dhima leh taxdiid maaha waa taqriib ama hadday yani laba dhudhun hal dhudhun ay ku darto waxaa dhima leh 300 oo dhudhun waa inay udhaxayso labadooda markay banaan taagan yihiin oo imaamka gadaashiisaas ama safka dheer saa u jiidmayo ilaa intuu gaarayo 300 oo dhudhun baa lagu qiyaasay intaa waa inay hadday banaanta waa inay ka badan imaamkii masaajidku ku jira ma'muumkiina banaanku jooga masaajidka meeshaysaa u dambayso iyo midka banaanka jooga intuu ku xiran yahay 300 oo dhudhun waa inay ka badan wa an yanwiya alqudwata aw iljamaaca ma'muumku waa inuu qudwo niyoodo qudwo dayasho waa inuu imaamka ku daydo oo waa maxay ma'muuman buu dhihi ama muqtadiyan ama jamaacatan saddexdaasuu mid niyoon karaa ma'muuman inuu niyoodo muqtadiyan isku mid waay ma'muuman iyo muqtadiyan jamaacatan salaada jamaacan ku tukanaya jamaacatan inuu niyoodo marka waa an yawiya alqudwa aw iljamaaca waa inuu niyoodo qudwadu yani ma'muuman oo muqtadiyan waay ama jamaacatan waa inuu niyoodo wa an yatawaafaqa nadmu salaatayhima ma'muumka iyo imaamka salaadoodu waa inay iswaafaqdo nadmiga salaada waa inuuna kala dunayn salaadii qiyaam bay leedahay rukuuc hal rukuuc bay leedahay ictidaal bay leedahay sujuud un bay leedahay way isu eg tahay salaadu nadmiga salaada waa inuu iswaafaqo waa inuuna iskhilaafin waay waa inuu iswaafaqo hadduu salaada nadmigoodu kala duwan yahay sida yani salaad duhur iyo kusuuf qorax madoobaad laiskuma xihan karo xaalay markay qoraxda madoobaata haday xume salaada madoobaadka la tukanayo 2 rukuuc bay leedahay iyo 2 ictidaal marka markii qofkii uu rukuucay uu soo toosay haddana istaag kalu qiyaam kalu galay mar kalu haddana rukuucaya see ugu soconaysa adiga hal rukuuc baad rabtay hal qiyaam laiskuma xihan karo janaazo iyo salaad duhur oo kale ama salaad casr oo kale laiskuma xihan karo yani janaazadii takbiir unbay leedahay rukuucna male ictidaalna male sujuudna male lana rukuuci sujuud buu doonaya laiskuma xihan karo salaadaha kale oo dhan wixii iswaafaqayo isu eg bal isku xihan karaa farad baa sunno lagu tukan karaa lagu xihan karaa sunna farad lagu xihan karaa qadaa adil lagu xihan karaa inta kale mar haddayba nadmigoodu iswaafaqayo waa isku xihan karaa janaazada hal mar kaliya lagu xihan karaa oo ma'muum hadduu qofka ku xihan kara hadduu jamaaca doonayo jamaacadina wuu ku helaya takbiirta ugu dambeysa hadduu uga xirto 4 takbiiradood waa janaazada mogta takbiirta ugu dambeysay markii allahu akbar lahaayeen iyo ma'muumkana ku xirtay allahu akbar way salaamo naqsadeen waa iska wadatay adiga jamaacadina waa ka heshay marka kaliya maad ku xihan kartaa soo ma laakiin horeyna kagama xihan karta qof cilmi la uma samayn karta kulma garan kara de soo ma wa an yatawaafaqa nadmu salaatayhima imaamka iyo ma'muumka salaadooda nadmigeedu waa inuu iswaafaqo una iskhilaafin weeye wa anlaa yukhaalifahu fi sunatin faaxishati lmukhaalafa wa anlaa yukhaalifahu ma'muumkii waa inuusan khilaafin hu imaamkiisa waa inuuna ku khilaafin fii sunatin sunnadaasoo faaxishati lmukhaalafa mukhaalafadeedu ay fool xun tahay ma'muumka waxaa la doonaya inuu imaamkiisa raaco sunno oo khilaafideeduba ay fool xuma keenayso imaad imaamkii khilaaftay baa lagaran muuqanayso inaad ku khilaafto maa maxaa ka mid a atixiyaadkii hore yuu imaamkii hilmaamay wuu istaagay ma'muumkii iska atixiyaadsaday waa sunno khilaafkeedu uu fool xun yahay way hadduu imaamku ka tago atixiyaadkii hore ina adna ka tagta way hadduu atixiyaadka la imaadana adigu ma istaag atixiyaadkii kama tegi kartid qunuudkii baa ka mid a ma'muumkii imaamkii wuxuu ka tegay qunuudkii adigana kuwa waad raacaysaa
marka ficlan iyo watarkanba sunooyinka hadduu imaamku ka tago ficlanna waad ku raaci hadduu sameeyo watarkanna waad ku raaci hadduu ka tago raacaysaa lanna yani khilaafideedu waxay keenaysaa foolxumay keenaysaa waxay kasoo istimoon matalan yani qunuudka oo kale qunuudka hadduu imaamku uu yani uu salaada dheerdheeraynayo oo markuu sujuudda u dhacaba uu sujuudda uu dheeraynayo waa qunaadkiina wuu ka tegey sujuuddana wuu dheeraynayaa maamuumku xoogaa ayuu taagnaan karaa intuu qunuudka soo qunuudu sujuudda kusoo gaari karaa hadduu imaamkii dheeraynayo way laakiin waa inuu waad ku waafaqaysaa sunnada khilaafideedu ay fool xun tahay maamuumka imaamku waa inuu yani ma'muumkiisa ku raaco waay uusan ku khilaafin waaye waa inuu ku waafaqo wa an yutaabicahu waa inuu raaco imaamku waa inuu ma'muumku waa inuu imaamkiisa raaco wa an yutaabicahu leanna ma'muumku taabici weeye imaamkuna matbuuc weye waa la raacaya marka qudwada shuruuddeeda waxaa ka mid a mutaabacatu lma'muumi imaamahu imaamku waa inuu maamuumku waa inuu imaamkiisa raaco afcaasha waa inuu ku raaco waa inu raacaya mutaabaco rugnigaa markuu galo waad ka dambeyni markuu galo waad ka dabageli markuu ka soo baxa waad ka soo bixi mutaabaca la yidhaha wuxuu rasuulku lehi calayhi salaatu wasalaam inamaa jucila alimaamu liyutama bih imaamka waxaa loogu talagalay loo sameeyey liyutama bih in lagu daydo faidaa rakaca faidaa kabara fakabiruu imaamku markuu allahu akbar yidhaahdo allahu akbar dhaha waidaa rakaca farkacuu waidaa qaala samica allahu liman xamida quluu rabbana walaka alxamd mutaabaca la doonaya daba gasha la doonaya daba socdo faslun suwaru lqudwati tiscun isku xidhashada ama isku dayashada suurooyinkeedu tiscun 9 wey 9 nooc weeye isku xidhashadu tasixu fii 5 5 waa saxiix 5 hadday isku daydaan ama 5 isku dayasho waa asaxaysaa waa saxiix wey tasixu fii 5 qudwatu rajulin birajulin nin ku dayday ku xirtay way ansaxaysaa ninku yani nin imaam buu ka dhigan karaa ninkan qudwatu rajulin birajulin wa qudwatu imra'atin birajulin qof dumara haweena hadday nin ku xiratana waa saxiix wa qudwatu khunha birajulin labeeb hadduu nin ku xirtana waa saxiix khunha labeebkaa la yidhaha nin hadduu ku xirto ku daydo waa saxiix waa 3 wa qudwatu imra'atin bikhunha naag hadday labeeb ku dayatana ku xidhato waa saxiix yani labeebku laba unbu mid noqone hadduu nin noqdana naagtu dee ninka way ku xihanaysa hadday naag noqotana naag way ku xidhan kartaa soo ma marka qudwatu imraat yani qudwatu imra'atin bikhunha naag baa labeeb ku xidhatay imaam ka dhigatay waa saxiix wey wa qudwatu imra'atin biimra'a naag ku xidhatayna waa saxiix qof dumara ay ku xidhatay labadii dumarka isku xihan karaa 5taa waa saxiix wey nin hadduu nin ku xirto labeeb hadduu nin ku xirto naag hadday nin ku xirato ku dayato naag hadday labeeb ku dayato naag hadday naag ku dayato 5taa waa saxiix isku xihan karaa wa tabdulu fii 4 4na way buraysaa salaada kuma ansaxayso iskuma xirmayso qudwatu rajulin biimra'a nin hadduu naag imaam ka dhigto laa tasixu ma ansaxaysa qudwadaas si kastaba hooga cilmi badnaato naagtu caalim ahaato ayadaa darsiga gelayso ayadaa aqrinayso laakiin salaada markii la gaaro imaamun baa loo noqoni yani ma noqon karta imaam wa qudwatu rajulin bikhunha nin labeeb inuu ku xirtana ma ansaxayso kuma dayan karo maxaa yeelay khunhahaas inuu naag noqdaa laga yaaba khunhuhu macnaha labeebku waa wax nina ixtimaal ku suuroobi kara naagna ku suuroobi kara muxuu labadii u noqday labadii aalaba wuu leeyahy aaladii raggana wuu leeyahay tii dumarkana wuu leeyahy mid unbaana ziyaada laakiin mid ay tahay lama yaqaan soo ma marka maadaama uu qarsoon yahay mushkil yahay inuu naag noqdaa laga yaaba hadduu naagu noqdo ninku kuma xidhan kara dee marka nin labeeb kuma xidhan karo labeeb imaan lagama dhigan karo
waqudwatu khunsaa biimra'atin labeebna naag kuma xidhan karo waxay labeebka inuu nin noqdaa laga yaaba doo nin yahay naag kuma xidhan karo soo ma waqudwatu khunsaa bikhunsaa labeebna iskuma xidhan karaan midka dambe inuu nin noqdaa laga yaaba kii hore naag noqdo maadaama labadoodii ay qarsoon yihiin arrintoodii iskuma xidhan karaan labeeb qudwatu khunsaa bikhunsaa afartaana ma ku ansaxayso laiskuma dayan karo faslun shuruudu jamci taqdiimi arbacatun jamcu taqdiimka shuruuddiisu arbacatun afar wey jamca sidiisa jamc iyo qasri waxa la yidhaahdo waa acdaaru safar wixii la ohan jiray wey safarka acdaartiisi oo qofku markuu safro safarkaana safar dawiil ahoo dheer uu yahay safarka dheer waa marxalatayn iyo kasii badan 2 maalin socod iyo kasii badan yacni waa 83 kilomitr iyo kasii badan yaa safar dawiila noqonaya safarkaa dheer qofku hadduu safro cudur acdaar buu sharcigu siiyey acdaar buu leeyahay acdaartaa sharcigu siiyey waxa weeye salaada inuu jamciyo oo duhurkii iyo casirkii buu isku jamcinaya taqdiim iyo taakhiir maqribkii iyo cishihii buu taqdiim iyo taakhiir isku jamcinaya qasrina wuu leeyahay salaadii wuu noo imaan doontaa fasalka dambe wey salaadihii rubaaciga ahaa buu gaabinaya duhurkii iyo casirkii iyo cishihii iyo laba ragcadood yuu ka dhigayaa qasrigaasa u ban soon hadday tahay inuu afuro ayaa sharcigu u baneeyey marka ruqsooyin waxaa jira ruqasu safar la yidhaha safarka ruqsooyinkiisa ama acdaarta safarka cudurdaarka la siiyey qofka musaafirka ah maadaama safarku uu mashaqo leeyahy xoogaa uu dhib badan yahay marka markuu salaadaha jamcinayo jamca uu isticmaalayo jamcu waa taqdiim iyo taakhiire jamca taqdiimka ah casirkii baa lasoo hormariyo duhurkii baa lagu daro cishihii baa lasoo qaaday maqribki baa loo keenay jamcu taqdiim baa la yidhaha afar shardi baa laga rabaa qof shuruudu jamci taqdiim arbacatun albadaa'atu bilula markaad jamcu taqdiim samaynayso 2 salaad isku jamcinayso waqtigii hore aad isugu geynayso albadaa'atu bilula salaada hore ee waqtiga leh waa inaad hor tukatood bilowdo sala duhurkii iyo casirkii baad waqtigii duhurka ku tukanaysaa casirkii baad soo qaado duhurka harta inaad ku darta soo ma marka hore waa inaad duhurka tukato markaas haddana casirka ku daraysa albadaa'atu bilula saas wey haddaad maqribkii iyo cishihii jamcu taqdiim isticmaalayso cishihii baa soo qaada maqribka u keenaysaana kow waa inaad maqribka tukato markaasaa cishihii ku daraysa saaxibu waqtiga waa inaad hormariso waa shardi albadaa'atu bilula wa niyatu ljamci jamcna waa inaad niyooto labadii salaadood inaad isku darayso isku jamcinayso waa inaad niyooto fiiha fi lula salaada hore mar intaad ku jirtooda ka bixin waa inaad jamc niyooto tii kalena inaad ku darayso markaad xiranaysay baad niyootay ama intaa salaadina ku dhex jirtay ba waxaad niyootay tii kalena inaad ku darayso niyatu jamci waalmuwaalaatu baynahumaa labada salaadoodna waa inaad xidhiidhiso markaad tan ka baxdo tii kale waa inaad ku darto jamca markaad samaynayso labada salaad iyagoo dheerna waa isku jamcin kartaa 4 ragcadood iyo 4 ragcadood casirkii oo ahaa isku dar iyo duhurkii waad isku dari kartaa 3 ragcadood maqribka iyo 4 ragcadood oo cishaha yaad isku dari kartaa ayagoo dheer baad jamcin kartaa jamc bas aa isticmaal kartaa qasri iyo jamcna waa isticmaal kartaa duhurkii iyo casirkii 2 ragcadood baa ka dhigta marka qasri iyo jamc baad labadaba isku darta jamca hadda shuruudda waxaa iskale waa jamca labada salaadood la isu keenay marka walmuwaalaatu baynahumaa waa maxay dhexdooda inaad xidhiidhiso duhurkii baad tukatay waxaad niyootay intaad duhurkii ku jirtay ama markaad xidhinaysa inaad casirkiina ku darayso soo maha waa inaad la kala reebinoo markaad tan ka baxdo tii kalena ku xidhiidho muwaalaadka wuxuu kusoo orin karaa labada salaadood intii udhexaysay waa inaan 2 ragcadood la tukan karin oo aad kaamil 2 ragcadood oo la tukaday waa inaan udhexayn karin waqti laga tukado markaad tan tukato waa inaad tii kale ku darto waa inaad daahinin wa dawaamu lcudri cudurkii waa inuu weli joogo cudurkii loo jamcinayay salaada maxaa loo jamciyaa cudurka loo jamciyaa waa maxay jamcu taqdiimka sidii safar iyo madar roobkana jamcu taqdiimka waa loo isticmaalaa soo ma marka cudurkii aad u jamcinaysay waa inaad musaafirnimadii ku jirto musaafir waa inaad tahay haddii ay roob tahay waxa loo jamcinayo jamcu taqdiimka roobkana loo isticmaalaaye roobkii waa inuu joogo cudurkii waa inuu joogo salaadii horaa la tukaday tii kala rabaa in lagu daro roobkii waa inuu weli baaqi yahay ta dambe intii lagu jiro hadduu doono roobka ha go-o laakiin markii ta dambe la geli rabo ama haddii lagu darayo waa inuu roobkii weli da-ay sababti waa ina cudurkii waa inuu baaqi yahay dawaam lcudri waa shardi wey 4 shardi baa laga rabaa jamcu taqdiimka
faslun shuruudu jamci taakhiir. jamcu taakhiirka shuruuddiisuna itnaani laba wey. jamcu taakhiirkuna waxa weeye duhurkii casirkii baa isku daraysaa, waqtiga casirkaa isugu geynaysa, gadaal baad udhigaysa. maqribkii cishii baa isku daraysaa, maqribkaad qaadaysaa, cishihii baa ku daraysa. jamcu taakhiir baa leedahay. marka jamcu taakhiirkaas aad samaynaysana laba shardi baa lagaa doonaya. shuruudu jamci taakhiiri itnaani, niyatu taakhiir. niyatu taakhiir waa inaad niyooto waqad baqiya min waqti luulaa maa yasacuhaa. salaadii hore waktigeedii iyadoo la joogo oo wakti la tukan karo, salaadii waktigii jooga weli uuna tegin, waa inaad niyoodo taakhiir inaad dib u dhigayso waktigaa damba tukanayso ku darayso. niyatu taakhiir waa inaad niyooto. niyatu taakhiiri waqad baqiya walxaal qad baqiya min waqti luulaa, salaada hore waktigeedii uu ka baaqi yahay maa yasacuhaa. waa inaad taakhiirka inaad niyooto, waa inaad salaadii dib u dhigayso, waa inaad niyooto way salaada hore waktigeedii ayadoo la joogo. wa dawaamulcudri, cudurkii waa inuu daa'im yahay ilaa tamaami haaniya. shardiga labaad waxaa weeye cudurka aada u jamcinaysay waa inuu joogo ilaa salaada labaad laga tukado ka tukato wey. marka jamcu taakhiirku asagu inaad salaadii waktiga lahayd bilowdana waxba shardi maaha, middaa rabtaad horumarin kartaa. inaad muwaalaadna shardi ma aho, intaad mid tukataad iska joogi kartaa, midda kalena hadhow waad tukan kartaa. jamcu taakhiirka labada shardi baa laga rabaa, niyatu taakhiir iyo cudurkii waa inuu daa'im yahay aad salaada u jamcinaysa. faslun shuruud lqasri sabca. jamci baan kasoo baxnay, kana waa qasrigii, salaadihii la gaabinayo. salaada oo rubaaciga waxaan ihi qofka markuu musaafarka yahay, salaada rubaaciga duhurka iyo casirka iyo cishaha waa la gaabin kara, laba ragcadood buu ka dhigay, qasri baa u banaan. laakiin maqribka iyo subaxa lama gaabinayo, laanna awal bay gaabnaayeenba soo ma. shuruud lqasri sabca. an yakuuna safaruhu marxalatayn, safarkaagu safar dheer waa inuu yahay. marxalatayn, laba maalin socod. laba maalin socod bisayri lafqaal, gaadiid la raray oo culus. gaadiidkaa lagu socon jiray sooma, awrta iyo waxa lamidka, gaadiidkaa la raray oo raran, gaadiidkaa raran meesha uu laba maalin u socdo. arbacatu burdina waa la yidhaha, afar hoos qabow. yani subaxii baa la baxayaa, duhuradii markii la joogo 6 saac meelaha la joogo, 12kii waa la degaya, waa in xoogaa la dego, galabtii baa la caraabaya, maalinka dambe haddana subax la soconaya, galabti waa laba maalmood gaadiidkaa raran wixii meeshu u socdo waa fogtahay. maxaa lagu qiyaasaa hadda? waagii hore marxalatayn, laba maalin socod baa la ohan jira. laba maalin socod, laba maalin socod macnaheedu waa maxay? gaadiid raran meeshuu laba maalin u socdo wey. qof iska lugeynayo maaha, lugeynay waa laga yaaba laba maalin meeshuu gaadiid ku socday inuu asagu maalin iskeed qofkii ku gooyaa laga yaaba may. laakiin taas hadda waa laga ilbaxay, wax walba waa la qiyaasay. waxaa la yidhi waa intee meeqa kilomitr wey, meeqa mayl wey aa lagu leeyahy soo ma. 83 kilomitr wey, 83 kilomitr. 83 kilomitr hadday meeshu jirto waa safar dheer, salaada loo gaabinay. an yakuuna safaruhu marxalatayn, wa an yakuuna mubaaxan, safarkiisu qofku waa inuu yahay safar banaan wey, safar mubaaxa wey. tijaaru u socdaa, ziyaaro dad buu soo booqanayaa, waalidkiisuu soo booqanayaa, meel buu u socdaa. waa safar aan dembi ahayn buu u socda. safaru macsiyo waa inuusa hayn. laakiin hadduu safaru macsiyo yahay, inuu xoolo soo dhacuu rabaa, inuu wax soo diluu rabaa, inuu balaayo sameeyuu rabaa, sharcigu cudurdaar ma siini. wax uu salaada uu gaabin karo ma jiro, wuxuu jamcin karo. laanna sharcigu inuu macsiyadiisa ugu kaalmeynaya noqonaysaa. haddii la salaada waa sii gaabin kartaa, waaba nin dembiga loogu kaalmeynayu noqonaya, lagu saacidayo maya. safarkiisu waa inuusan ahayn safaru macsiyo, safar mubaaxaho banaan waa inuu. waalcilmu bijawaazi lqasri, qofku waa inuu ku cilmi leeyahay salaada in la gaabin karo. iska gaabin lama rabo, waa inaad ku cilmi leedaho salaada sida loo gaabiyo ee shuruudda lagaa rabo iyo waxa waa inaad taqaano wey. waalcilmu bijawaazi lqasri. wa niyat lqasri waa inuu niyooda cinda alixraam. salaada markaad rabto inaad gasho ood xiranayso, inaad gaabisaad doonaysa, safar baatay soo maa. markaad xiranayso waxaad niyootaa qasri, inaad gaabinayso. qasran baad niyooni, ama ragcatayni baad niyooni. ragcatayn haddaad tidhaha waa qasrigu, qasran haddaad tidhaha waa gaabin baad niyooday wey. qasran baa niyoodi. niyat lqasri, qasri waa in gaabin waa inuu niyoodo cinda alixraam, salaada markuu galay. dadka qaar waxay yidhahdaan markay safarka yihiin, qasri baa ii xiran.
qasri kuma xirnaado macnaa musaafir baan ahay inaad tirahda laguna haddii tira qofka may salaada waan gaabinaya inaad tirahdo wey adugu laakiin qasri baa ii xiran qasriga lama soo xirto markaad soo safraysa lama soo xirtee markaad salaada gelaysa un baa la niyoodaa bas niyat lqasri cinda alixraam wey markaad xiranaysa salaada xarmanaysa wa an takuna salaatu rubaaciya salaada la gaabinayo waa inay tahay rubaaci salaadii afarta ragcadood waa duhur iyo casr iyo cisho wey laa hunaa-iya walaa hulaathiya mid labada ragcadood ay subaxayd lama gaabin karo mid yani hulaathiyadahay saddexdahaydna lama gaabin falaa yajuuzu qasru lmaqribi cala asaxiix qolyaa waxay leeyihin maya maqribka waa la gaabinaya maadaama saddex ragcadood u yahy labaa laga dhigaya laakin waa qowl marjuuxa kaas aan ictibaar lahayn la qabsan karin wa lagu canfil karin qowlka saxiixa mujmaca waxaa weeye inaan maqribka la gaabin karin saddex ragcadood wey salaadahan afarta inuu gaabiyo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam way ka sugnaatay laakiin maqrib iyo subax lama gaabin sidooduba iska ah wa dawaamu safari safarki waa inuu daa'im yahay ilaa tamaamiha ilaa ay salaadu ka dhamaato wa anlaa yaqtadiya bimutimin wa anlaa yaqtadiya waa inuusan ku xidhanin oo ku dayanin bimutimin qof salaadiisa taam yeelaya fii juzin min salaatih shardigaana waa khatar markii safarka la yahay in badanna dadku way ku kadsoomaan iska fiiriya ka ugu muhiimsan wey shardigaa wa anlaa yaqtadiya waa inuusan ku xidhanin oo ku dayanin bimutimin qof salaadiisa taam yeelay hadaa mar musaafir tahay oo salaadaba aada gaabinayso qof salaadiisa dheeraysanayo asagoo salaada taam yeelayo kuma xidhan kartid ma ku xidhan kartid walow hadduu doono laba ragcadoodba qofka ha tukanayo ma ku xidhan kartid niyadiina iskhilaafsan de kan niyadiisu waa mutim salaaduu taam yeelayaa kana salaad niy uu gaabinayaa salaadii kuma xidhan kartid cabdullaahi bnu cabaas ayaa waxaa la weydiiyey imaamu axmed baa musnadkiisa ku warinayay cabdullahi bnu cabaas baa waxaa la weydiiyey maa baalulmusaafiri ninka musaafirka xaalkiisu waa maxay hadduu keligii tukanayo salaada wuu gaabinayaa haddii uu yani qof salaadiisa dheeraysanayo uu la tukadana salaada inuu dheereeya waajib ku noqonaysa maxaa dhacay tilka sunnatu buu yiri taa waa sunnadii nabi maxamed buu yiri sala allahu calayhi wasalam tilka sunna ninka saxaabiga hadduu yidhaahdo tilka sunna yani waa xadiidka macnaha wuxuu ka yahay marfuuc yani nabigaa sidaa yiri wey ay ka dhigan tahay marka qofka salaadiisa gaabinayo oo musaafirka ah asagu imaam wuu noqon karaa markuu asagu salaadiisa labadiisa ragcadood tukado maamuumiintu salaadii way dhamaystiranayaan inta u dhimaneed laakiin nin salaadiisa dheeraysanayo kuma xidhan karo intuu laba ragcadood la tukadaan iska salaama naqsani ama labada ragcadood ugu dambeysaan ooga xidhani ma jirto ma suroweyso maba ku xidhan kartid wey marka inaad markaad musaafirka tahay haddaad dad yani aad musaafiriin isla tihiin oo isku jamaacaysanay haddiina haynin inaad keligaa iska tukato iyo inaad salaada dheerayso jamacada la tukato marka intaad yani qofku markuu musaafir iyo meel ka yimaado magaalo kale u yimaado 4 beri buu salaada gaabin karaa intuu magaaladaas joogo uu salaada gaabin karaa oo jamcin karaa marka dhowrkaa beri oo joogto haddaad rabto inaad safarka cudurkaaga ku amso salaadaada iska gaabsato inaad keligaa tukato iyo inaad jamaacadii la tukato salaada dheerayso labada unbay mid noqon laakiin laba ragcadood ogama xidhan kartid ma oga xidhan kartid taas dadku way ku kadsoomaan iska ilaaliya ka qaar baa sidaa sameeya laakiin jamaca waad samayn kartaa jamaca maalan salaadii baad la tukatay tan baad la tukatay waad kacaysaa tii kalaad ku daraysaa waa lagu ogolaya jamca leanna laba salaadood mogtahay duhur casrki duhurkii bay tukadeen marka jamaacadii baa duhurkii la tukatay 4 ragcadood casrkii waa markii la salaamo naqsaday waa istaagaysaa casrkii oo 2 ragcadood aad ku darto oo gaaban oo ku jamcin kartaa markaas laakiin qasriga mar haddaad ku xirato ma gaabin kartid wey shuruudaasaa laga rabaa qofka salaadiisa gaabinaya wey sala allahu wasalam calaa sayidina maxamedin wacala alihi wasaxbi